assalaamu calaykum kusoo dhowaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luuqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ama bilaabaysa barashada luuqadda Jarmalka. Lection 9 casharkeena sagaalaad waxa aan ku baran doonaa casharkeenan waxa loo yaqaano Satzstruktur oo macnaheedu yahay sida loo dhiso jumlad macno samayn karta oo la fahmi karo. muhiimadda casharka waxa aan ku bilaabi doonaa qaybta ugu muhiimsan uguna isticmaalka badan leh waana subject iyo verb ficil sameeyaha iyo ficilka. laba waxa kale oo aan ku eegi doonaa meesha uu ficilku ka galo jumladda. saddex waxa kale oo aan ku baran doonaa ama aynu ku arki doonaa inta nooc su'aalood ee jira. bal in yar aan dul istaagno oo aan eegno waxay tahay jumlad waxa loo yaqaanaa erayo badan oo la isku geeyey ama isku tegay ayaa waxa ay sameeyaan jumlad. bal aynu ku bilowno jumladan fudud. Ich heiße Mohammed. magacaygu waa Mohammed. sida halka idinka muuqata ich waa subject amba waa subject oo macnaheedu yahay ficil sameeyaha. heiße na waxa weeyaan waa ficilka ama verbka. aynu eegno jumladan kale. Ich wohne in Berlin. waxa aan ku noolahay Berlin. Ich waa subject ama waa ficil sameeyaha waana aniga qofka ficilka sameynaya. wohne na waa verbka ama ficilka. aynu eegno xigta. Ich bin müde. waan daalanahay. Ich waa subject waana qofka ficilka sameynaya. bin na waa verbka ama waa ficilka dhacaya. sida halka idinka muuqata verbka ama ficilku wuxuu mar walba taagan yahay booska labaad. waxaa jirta marar kale oo uu verbka ama ficilku tago booska koowaad ama booska ugu dambeeya. waxaynu ku baran doonaa casharadeena soo socda. aynu eegno tusaalayaashan. aynu ka bilowno u horeysa. Ich lerne heute Deutsch. anigu waxaan baranayaa maanta Deutsch. heute lerne ich Deutsch. maanta waxaan baranayaa anigu Deutsch. Deutsch lerne ich heute. Deutsch ayaan baranayaa anigu maanta. Ich lerne heute Deutsch. anigu waxaan baranayaa maanta Deutsch. dhammaantood say u qoran yihiin waa sax. sida halka idinka muuqata verbku mar walba ama ficilku wuxuu taagan yahay booska labaad. waynu badbedeli karnaa dhammaan. ich oo ficil sameeyaha ah ama subjectiga ah waynu bedeli karnaa. heute oo waqtiga ah halka u horeysa way soo mari kartaa iyo Deutsch oo waxaad baranaysid ah halka hore waynu soo marin karnaa. laakiin waxaa shardi ah in uu verbka ama ficilku istaago mar walba booska labaad. mar walba oo aad jumlad dhisaysid waa in aad verbka ama ficilka uu booska labaad uu ku jiraa sida halkanba idinka muuqata. aynu dul istaagno wax yar inta nooc su'aalood ee jira. waxaa loo yaqaanaa fiifqaagan su'aalaha ku bilaabma xarafka fi amba wa. waxayna kala yihiin fi, felshe, fas, fu, fuheya, fiifiil iyo kuwo kale oo fara badan. waxaynu wax badan ku arki doonaa su'aalaha ku bilaabma wa amba fiifqaagan casharadeena inoo soo socda. si aad wax badan uga sii fahantaan fiifqaagan aynu eegna tusaalayaashan. fu waa fiifqaagan. funan na waa verbkii amba waa ficilkii. si na waa subject oo ah ficil sameeyihii. aynu eegna tusaalahan kale. fuheya kommst du. halkee ayaad ka timid. kommst du waa verbkii amba waa ficilkii. du na waa subject oo ah ficil sameeyaha. Wie heißen Sie? magacaa. heißen waa verbkii. Sie na waa subject. sida halka idinka muuqata fiifqaagan xataa verbku ama ficilku wuxuu taagan yahay booska labaad. danke mahadsanid. waad ku mahadsan tahay intaad i daawatay ee aad i dhegaysatay. waan rajaynayaa in aad casharka wax badan ka wada fahanteen dhammaantiin. haddii aad casharka ka heshay fadlan la wadaaga asxaabtaada jecel inay ayaguna bartaan luuqadda Jarmalka.
fadlan subscribe garee haddii aad nagu cusub tahay si aad ula socotid casharo kale oo badan.